samayn lahaa maxay toolay waxaan shan yar baa wada ugu dhufan lahaa kowdhi waxa oran lahaa walaal qaluulay dawadii naftayda yartu dooq raacay dugsi lama horaanay qaluulay deefka ku carcaaro aabaha ku wasbaan leeyahay haday iga tagtayba qofka jecesha dukaatigo wallahi qalbigaagu soo noqonayo xanuun badanta sida wax ku soo dhaweynaya burdhan miriyo su'aashan waxa ka oranaysaa hadii qofka jecesha ka tago waliba saayid jeceshay go'aanka ugu horeeyay qaadan lahayd muxuu yahay horta waan ku dhawaay buurdhaab horta anigu qof ma jecliba mana jeclaan hablaha Soomaaliyeedna ma jeclaadaba sababtoo ah hadee hablii imika ma aha wax daaminayaba sidii cadaan ma soo wada cadaan ya inkastaan hablaha Soomaaliyeed cadaan ka doorsanay hadana yeelkoodii hablii Soomaaliyeed waxa la aaminay bay noqdeen marka qofna wali qof ma jeclaan waxna kuma sameeyeen hadaan jeclaado lacala haday dhacdaba laakiin wada aaminsan jacaylka ma aaminsan jacaylka hal aaminay marka ma anigu xiisoolaan hoo ma aamin jacaylka ayaa ma soo xaraanay madal xiisoolay ma hablu iska way ka ilaalinayaan laakiin iyaga ilaalinaya wala magacaaga madhawahay magacaaga waa khar weeye khar wala burdha miriyan ku soo dhaweynaya su'aal baan ku weydiinaya koransa qof aad jeceshay haduu ka tago waxa sameyn lahayd calafka dhamaado dee mid kale guursan lahaa wax dhibada ku samaysto bas sameyn kuma keento qof aad saayid jeceshay ka tago may calafka dawaan kala cunay wax kala haray ma jiro calafka raadinaya iska raadin lahayd sameyn ma iguma keenayso walaal waa Mas'uud Axmed sida wala burdha miriyan ku soo dhaweynaya su'aashan ku weydiinaya waxa ka oranaysaa hadii qof aad jeceshay ka tago waxa sameyn lahayd walaal qofkii haduu tagay muxuu la tagay ma haduu dhinto mise haduu nool yahay haduu dhinto haduu nool yahay haduu fogaado qofkaas qofkan jecel haduu dhinto Ilaahay u naxariisto haduu waxay la hadhay waxay la may hadheen laakiin sameyn ku keenay way wallahi aniga horta wax saameyn ugu keenay qofka haduu markaa tagay to waa qof aan ku jecelayn haduu markaa tago ka dheeraaday de wax saameyn ay ugu sameynaysaa ma jirto aniga laakiin qof aan jecel hadaan ka tago aan baa saameyn la anigu ma nafsi galay goor qalbigaaga oo dhan raacad aad wadaasay uu tagay maana saameyn ku keenay way wallahi horta aniga qalbigooda aad iyo aad boogayso wax ku jeclaadaaba way adag tahay qofkan jeclaado hadaan qofka jecel oo iga tagayna waan istiraaba xataa laan hadaan cid jeclaado ma noolaadeenba ayaan aaminsanay ilaa imika ma waxaan jecelahay marwadeeda Nicmo Maxamed Ibrahim oo aaminsanay inaan iga tagaynba insha Allah haday iga tagtan waan deeyo markay isdildili lahayd aan nolosha insha Allah burdha miriyo su'aal baan ku weydiinaya koransa qof aad jeceshahay wali saayid jeceshahay hadii uu ka tago Sweden waxa sameyn lahayd xuma sameeyande mar hadii iga tagay qofkan jeclaa waxaan sameyn lahaa qoray taxaweeyde qalbi jabay leedahay kowde marka waxaan sameyn lahaa waxaan wallahi aan sameeyo ma garteen kowde laakiin saameyn iyo qalbi jabay kala kulmi lahayd waayo muxuu sameyn waay kowde marka waxaan la dadka wax jacayl kala maartay waxaan la qaahay qalbi jabinna dadka may yaanu ka tagi waayo jacaylku wax qurux badan waana waxa maxaa la dhahaayay dadka farxad geliya hadii aniguna wanaamsan aad ma soo walaal soo dhawaal magacaaga waan dhaw walaal magacaaga Cabdixakiin Siitaac baa la dhahay Cabdixakiin burdha miriyan ku soo dhaweynaya su'aashu waxa ka oranaysaa ka soo bulaayo su'aashu waxa ka oranaysaa hadii qof aad jeceshay ka tago waliba gooraas wada raacisay wada siisay waxa sameyn lahayd de horta riyalka naftayda kolan dunya ku dhago kolan dollar ku diro kolan dahab ku xidho si kasto aad doonto baan ku gula dadaalay waan ku diiday oran dartaa baan u liita ilaa marka waan dilan oo dib maxay tulay ayl bay naafiyay soo laabo ma doodo la wax kala ma dhahay aad ma santa walaal Siddiq wallahi dawla Siddiq walaal burdha miriyan ku soo dhaweynaya su'aal yar qoftana ku weydiinaya taasoo koransa hadii qof aad saayid u jeceshay ka tago waxa sameyn lahayd jawaabtiga maxaan sameeyaa waabiga tigay maxaan sameeyaa waxa ma sameeynayo jawaabtiga maxaan sameeyaa waabiga tigay ana sameeyno ku keenay ya go'aan qaato waad kan lahayd adna ha way go'aan lahayd go'aan qaato way go'aan qof soo jeclaatay ma jeclaan laakiin ha waan rajaynayaa insha Allah asante walaal magacaaga walaal magacaaga Mawlid Cabdi Axmed Nuur baa Mawlid walaal soo dhaweynay ku burdha miriyo su'aashan ku weydiinaya waxa koranaysaa hadii qof aad jeceshay ka tago waliba goorada qalbigaaga wada siisay waxa sameyn lahayd
waxaan sameyn lahaa qof halkii buuxiyo ma raadsan lahaa laakiin inta qofkan ka sabrayso qof raadsanayso meena waqti ku qaadatay waqti badan bay qaadataa waa wax laga soo tabaday weeyaan markaas qofkana caloosha xabad ku qabo maayo qofka hore tagay waan cafinahay xaq ilaahay baan ka cafinahay magaraasa marka mid kale ma raadsan lahaa waxaan noqon lahaa ninkii xamaamta qaatay ninkii waxa la yiri Soomaali wax kuma maada ninkii xabaashi loo kala tagay marka aniga xabaashada noo kala tagay nafteedu ma xalin lahaa maxamed maxamedow ma ku soo dhaweynaya su'aal baan ku weydiinaya koransa qof aad saayid u jeceshay duu ka tago maxaa sameyn lahayd qof saayid haduu ka tago aad u jeceshay duu ka tago جوان وغيران لها ها هذه يا ابن غيران قانو عيب انت الا بك قادنيا كسمرتو ما واحد دقيقه نص واحد بيقو قادنيا ها بر بيقو قادنيا soo dhaw walaal magacaaga waan dhaw walaal magacaaga Cabdiraxmaan Saalax Maxamuud Cabdiraxmaan dad ma santay gurda miireen ku soo dhaweynaya su'aasha waxa koransa qof aad saayid u jeceshay duu ka tago maxaa sameyn lahayd qof aan saayid u jeclaa haduu iga tago walaal kulay nin raga baan ahayo qofkii aan jeclaa hadduu tago walaasay niyadeedu uga hadhi lahayd oo baan falowgeed qaban lahaa laakiin saameyn way igu yeelan lahayd oo waayo jacaylku waa cudur aad u xun oo aan dawo lahayn kowde marka sidii naftaydu u bogsan lahaydoo ayaan falowgeed qaban lahaa oo naftaydaan dawaysan lahaa xal kale ma yaalo hayaada mudan soo dhaw walaal magacaaga waa daahir waa dhamiiriya ku soo dhaweynaya su'aasha koransa galto wadnaa hadii qof aad saayid u jeceshay ka tago maxaa sameyn lahayd waan ka daba tagi lahaa haddaan meel aan gaadhay ay tahay waan ka daba tagi lahaa baansaday oo xiriirkiina iyo wixii barta kaga baxay samxa sameyn lahayd deertu bilaadanka waxa hadda waji ka doonaysa lama bariyo hadduu garto isagu inaan kala tagno shaqadeedan qabsan lahaa aniguna laakiin qof jeceshay hadduu tago saameyn way kuu keenaysaa saameyn way keenaysaa laakiin saameyntii waxaa ka weyn inuuna ku rabin saameyntu kulleyba way imanaysaa laakiin waxaa meesha taalada inaanu ku rabin isagii haddaan ku rabinna inaad daba socoto ma waqtiga kaaga lumaya marka calafkaygaan raadsan lahaa kulleyba saameyntu ay gasho oo aan ka xumaado anaa ka xun baan haddana calafkayga ka raadsanaya ولا أحمد بالي أحمدو مرة بنك سود وين كسر بورنا ميري سؤال شو حكوران سقربسا هدي قفة سعيد وتعيش كاتبه أنت اللي بكون قاعد قلبي كربت ولا هلطة قلبي قفك هدو كاتبه jacaylkiisu intuu kula joogan buu jacaylya hadduu kaa tago wuu kaa baxaya halkan laakiin saymanka waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mastar Ciro waxaan salaamayaa gudoomiyaha guurta Saleebaan Aadan waxaan ka salaamayaa Maxamed Kaahin Axmed madaxweynaha dhan halkan ka salaamayaa aniga Axmed baa la yiraahdaa jawaabtiina waa ka cali Soomaaliga inta ku dhiibay jacaylkuna waa wax jiro laakiin saameyn bay ku keenaysaa badan jacaylku wax jira hurdada waxaan ku socod badan shaqo badan hanti badan waxba ku keenaya wuu wajiyaal badan yahay mar walba ilaahay inuu fududeeyo uu leeyahay jacaylku waa khatar weeye ku salaamaya waa ma santa wala magaca sahal wala burda miiriyam ku soo dhaweynaya su'aasha xafaransa hadii qof saayid u jeceshay ka tago maxaa sameyn lahayd waxa sameyn lahaa waa iska hadhayade wax kala sameeyo ma jiraan laakiin sameyn ku keenday sameyn ku keenday sama ma mid kale iska jeclaan lahaa markii taas waxa hadeen sameyn qofkii hore jecel laakiin dad toos u jeceshay ka waran qalbiga inta in leeg bu ka qaadlaa qofkaas waan ka saar lahaa qalbigayga markii nin baan taa ka saar ka xasuusaadu saari kara asante walaal wandhow walaal Cabdiraxmaan walaal yartaay hadii dhacdana qof jeclaato oo qofkaas ka tago saayid qalbigaaga siiyay maxaa sameyn lahayd walaal qalbigayga kuma xidhan boola siidaa baan ku dhiiraa waa jeclaatay ma jeclaadeen muxuu tariiday walaal hadduu tago muxuu tari dumar baa dunida ka buuxee marka mid bedelan lahayd waa la bedelin lahaa ma santaa walaal burda miiriyam ku soo dhaweynaya su'aal baan ku weydiinaya koransa hadii qof aad u jeclaatay ka tago maxaa sameyn lahayd waxaan sameyn lahaa qof aan aad u jeclaado waa iska caadi mid kale ma iska doonanaya aan aad u jeclaado laakiin ma
samayn kugu keenay qofka qalbiga hoosisay u tagay waa iska caada iska tago marka dambe maan hadaan doono iyada haday soo noqoto soo celin laa iyada soo celin laa iyada kama maarmasi marnaba iyada ma santay walaalka